waa maxay Maryanay saaka buuqani saaka dadkii baa isku kay soo wada gaadhay in yar isug oo ku shaqaynaya Madiinooye xaggeen ku suga inaan gacan ku siiyo kula shaqeeyo Soomaha soo gudub ilaa khayr ha ku siiye gabadhani hoo u miis walaal kiilo tamaandha waa taa miiska hoosteeda taale horta u yara sug tani ha dhamaatee hadhow baynu soo saari doonaa aniga waxaad iga iibisaa kiilo tamaandha walaal dhammaantiina waan idin wada shaqaynayaaye iska yara suga afartaa dumar u shaqeeyo aniga ii dhiib wixii la miisaamayo haye walaale adiga maxaan ku siiyaa haa yara suga gabadhaa shalmadda casla idinka soo horraysay gabadhaa waaban u diyaariyeybe halkaa miiska uga soo qado u dhiib eedo macaamiisha aad bay u badan tahay keligaa hadda kadib uma wada shaqayn kartid shalay iyo maantaba waan ku dhex dawaqay waayo macmiil fara badan ayaa igu soo biirtay waa qasab inaad hesho qof gacan yara oo ku caawiya waa runtaa maanta adigaabay caawiyee shalay madaxaaba igu xanuunay anigaaba daalay intii yareeda aan taagnaa waa qasab inaan qof gacan yaraa helo Madiinooy ma shaqaalan kuu keenaa waaryaa siidow waad iga soo daahday maxaa dhacay hay Yaasmiin waa soo socodi leh jidka le jaam ahay waaryaahay waabad soo lugaynaysaa maxaa jaamka ku geliyey kistoo ma aragtay cariiri camal las ahay jidka baabuura buuxdi siidow ma waxaad iga dhaadhicinaysaa inay waddadu cidhiidhi tahay iyadoo saacaddu iminka uun soo gaadhay 9 subaxnimo haye bes iga dheh marka waa iga heshay waxaa ii diraysid la ii sheeg waarniyahow inaan ku aaminaan doonaya adiga Yaasmiinay inaan ku aaminaan rabaa maxaa waaye hormaan wax kaaga helay mayay dhagayso halii aan soo daahi ma weligu haysataa bay waari dhagayso waan ku aaminsanahay haa saasi dheh warkaasaa i maraaya ee hadda ii wadba hadalka badan naga daayo i maqal waa anigan furihii dukaanka la soo wareegay si fiican aan ku maqloo haya qorshahaygu wuxuu yahay inaan dukaanka camiro nashqad qurux badanna aad ku samayso naqshad noocee markaas waxaan uga jeedaa in dukaanka derbiyadiisa dibadda aan ku xardho muuqaalada qalabka guryaha aan ku iibinayno fariida taabay xaggan gudahana miisaska qadada fadhiga iyo hurdadaba si qurux badan baan rabaa inaan u kala dhigo waxaasoo dhan shaqadeeda waaye qof kale ma loo raadihayo eeshmeen bilaabayna wakhti ma jiree si degdeg aan rabaa inaad u bilowdo wixii loo baahan yahay lee soo gad adiga sida rinjiga iyo wixii la mid ah haddaba soo qiimee waxaad u baahan tahay hawshana hore ka gal walaal fariid waaye ma isugi kartaa intaan dukaanka maalin ka soo dhammaynaayo shaqadoo yaro igu harsan haa isray waa yahay waan ku fahmay adaa mudan walaal adaa mudan ganacsigaaga allah kuu barakeeyo waan is arki doonnaa insha allah subax wanaagsan aabo ma fiicantahay aabo bal ii waran saaka leedh aad u macaana daaqadihii ka soo gelaysaabee nabadqab faarax subaxdii daaqadaha loo bannaysta hawada nadiifta haye maxay ahaayeen waraaqahani saaka haa aabbo waa mashruucii cusbaa ayaad iga sugaysay hadhow baad eegeed jawaabtan iigu soo celin doontaa waana shaqada aad u qurux badan shaqo yar baan gacanta ku hayaa mar dhow baan eegi doonaa oo aabbo markii aan kuu soo galay telefoon baad ku hadlaysay muxuu ahaa degdeg umaad u dhigteen degdeg umaan dhigin markaan sii dhammaysanayey baad soo gashay waxay ahayd isra oo ii mahad celinaysay haa waan gartay anigaba ikraan bay la soo hadasho ii mahad celisay adiga laftigaagana way kuu soo mahadnaqisay ikraan waa ka guddoomay moolkii isir tac badan baad gelisay aabba faaraxow mahadnaqana adaa kasbaday waxaasoo dhan aabbo adiga karaamadeeda iska leh aniguna shaqadeedii durtuman ka soo dhalaalaa ammaan badan baa shirkaddeenna uga soo hooyatay dad badan oo dhismayaal waaweyn doonayana waannu ku kulannay xafladdii furitaanka moolka xaflad weyn oo dad badanoo muxtarimiin ah iskugu yimaadeen beed oo si wacan weliba loo soo agaasimay anigaba intii ka bacdi dad badan bay la soo hadla waxaynu u baahanay in aynu tayadeenna iyo dadaalkeennaba labalaabno isirna erey fiican bay inoo tiri xafladdii weliba baraha bulshada si fiican bay uga muuqatay haa aabbo si wacan bay u soo agaasimeen oo qurux badan sawirradii laynaga qaadayna waan soo dejiyey laakiin adigu xafladduba umaad jeedin soo maaha hee aabbo soo inagii wada soconnay xaggeen kaaga maqnaa bilicda xafladda bilic kale ayaad kaga mashquushay soo maaha aabbo dhigaddaa sarbeebtood si fiican waxa igu sheeg adiga igraan maxaa iskaga kin maran subaxii dhoweydna gooni baad isula baxdeen sheeko iyo qosol idiin gaara baa wadeen cabdiyow wadaayow ii waran hee ahlan iyo wasahlan wariya waa siidow iska warrama saaxiibayaal soo dhowaada waa dhownahay ninkii wadaagaa calina waa kan waa ila socdaa cabdiyow saaxiibinka aniga waad igu kaxsan tahay waar cali waan kuu soo socday saaxiibe bal ii warran
caliyow dhibka naga dhaaf adiga cali dhibka inuu la dhashay baad mooddaa ma isaga afka isku hayn karaba waar waxba ma bilaabaye idinku heshiisunba lahaada caliyow annagu ismaba qabsannee adugu balsharkaaguna naqaadsiin cabdiyow ayaantaa maqaayadiiyo xataa waa noogu imaan weysiye ii waranbo see wax u jiraan haa saaxiib waan soo haleeliba waaye gelinka dambena halkan ayaan joogaa maryan ayaan ka nasiyaa shaqada haa galab kasta dukaanka naagtaa inaad fadhiisatid maba ogeenba ani muddadan aad maqaaxida iga weydayba halkan soomaan dhaafin laakiin maalintii aan dukaankan dhisayni adiga maba ii sheeginbo inaad haddana ka shaqeeyaysid waar dee imka soo muu lacagaysan ninkaad maqaaxida ka raadinaysaa caliyow shibne ma dhihi kartid miya adig dee miyaan aamusi karayaa saaxiib adigii baa ninka si jilicsan u waraysanayee siidow saaxiib anigu waxaan isiri ninkani ma dhamma waxbaa ka siiya waar ma habaar bay gaadhay sheekadu cabdiyow adiga shib ii dhebo niyow cali markaan ku soo raacay wax misku ogayno ani adig haaye laakiin ninkan warka aad kula hadlaysid ee jilicsan ka daayo hadalka hoos ugu dhaadhac horta markaan soo baxayni ma isku ogayno inaad shib dhahdi see camal adiga waar inooga qaad waxaad inooga qaadayso inaga keen ninkan wax maxay ayaad iga rabtaa caliyow yaab waaye maxaa ka sheekaynoo haysaa saan waa iskula jirni siidow ninkani aduu kugu soo daba gabbanayaaye annagu waanu isdillay waar waxaas intaad ka baxdid maanta noo dhiib waxaad noo dhiibayso waxba kuuma hayo walaal caliyowe dhibka inaga dhaaf haddaba war ninkan saaxibu ciyaal waay wax dheeraad asbixiyo ma haayo iska dhaaf wuu hayaaye ma ninka meesha intaa leeg dhex fadhiya ayaan waxba hayn war haddis haystana admaa wax u dhiibti siidow saaxiib ninkan ixtiraamkaagun baan kula hadlayaaye bal adugu afgaro waar aniga ayaa gartay lacagta gabadhiisa ayaa haysa oo isaga waa laga ilaaliyey laftigiisa war caliyow isku shiix horta naagtiisa hadday lacagta hayso ceeb miyaa waar haaye ninkan aan waxa weydiinano aan isagii waxba gacanta ku hayn ayaa u daran adiga gaali cabdi waxaas haysta oo dhan in sixaad kugu sii maa rabti waa 8 fiidnimo waxaan anigoo yaasmiina iyo hooyaday Saynab aan wada cashaynaynaa saaxiibada qaali maana cadeey aad baan ugu faraxsanahay inaad tilinka naga duubto hooyo maana cadeeyna waa qof nagu qaaliya anigana aadan idinka mahad celinooyo casuumadan cashadaad ii suubiseen mana hilmaamin doono hooyo sidaa nin badan kaaga sheekaynaya maano ilaahay baa mahadla waa qofkii aanan la'aanteed ii suurta gashay inaan ganacsigii dib u soo celiyo yaasmiinay saasa ii ammaanin abbaay kartidaada leed ku meel gaartee maanay anigu waxaan ku odhan lahaa ammaanba waad dhaaftay ee ilaahay unbaa abaalkaaga gudi kara hooyo Saynabay abaalka waan isku leenahay laakiin aniga yaasmiin dad wada shaqaysto aad isu fahmay leenahay anigu maanay waxaanan ka abaalka dhacayn sida dukaankaaga igu aamintay iyo martabadaadi gaarsiisay yaasmiinay ani keligay ma ku aaminahay macmiisha dhanaa ku aamintay laba qof oo aan isaaminay wax ma wada qabsan karaane maanay anigu waxaan ku leeyahay ilaahay dukaankaaga ha ku barakeeyo horta hooyo Saynabay ilaahay ha ku dhowro ducadaada aan ku wada soconay aniga yaasmiinbo soo ma ahan ducada hooyaday waataan maanta ku soo gaadhay inaan dukaankayga dib u soo celiyo anigana ducada ii soo diri jirtay aw dukaankayga ku barakoobay alxamdulillah caawa haddaba anigaa idhi maana inoogu yeedh aan duco kale huwiye mahadnaqna uga jeediyo gacantii ayna siisay noo soo ducayle in ilaahay khayrkana waafajiyo ducadaydu idinkama hadhee guulaysta dumar ganacsiga fahmay baa tihiine rabbiguna ha idin garab galo maanoy dumarka iskaashatada u wanaagsane aan iscaawinno dukaanka aan furayna micnihiisu maaha inaan kala guurnay aad baan isku kaashan doonaa yaasmiin abbay dukaankaaga cusub ani waxaan u arkoyaa koon ani iska leeyahay waaba siday tahay ma waxbaaba kala leediiba waxa kan laga waayo waa in kan kale laga helaa insha allah yaasmiinay waxaan kaa codsanayaa inaad iga wadanin hodan booskaaga iidaa ii joogayso way xoog furan tahay laakiin way ku dhibaysaa waan kuu daayey iyadaaba doonaysa inay kula joogto horta inantan hodan ee inankaygu waa balaayo loo baahan yahay kolla way ku dili kolla way ku noolay suuqa ay nooga soo adeegi jirtay islaamaha way isdilaan haddana markay heshiiyaan wax uga wanaagsani ma jirto cashadan aadaan mafsuud uga ahay hodan inay ila shaqaysana aadan ugu faraxsanahay hooyo Saynab ducada adiga lee waay horta sitidii miyaynu iska ilownay baryahan bisinka ku bilaaba shaydaan ha baydadee wax la bartaan bisilahayn baraka yeelan waa wax la bartaan bisilahayn baraka yeelan waa alla bisina loo baraka qabe bisina loo baraka qabe bara malaayige alla mulka
kala maqnay hana madoobaynin allah hana madoobaynin maantaan la kala maqnay wiilka shidan habeen bahudhalka ugu khatarsan baadi keentay intaan joogay aad baan kaaga mahadcelinahay eedha saafiye walaalle wiilka shidan ma magac baanu lahayn mise waad hilmaamsan tahay weliba haddii aad nala sii joogi lahayd meelo kalena kuu dalxiis gelin lahayn aniga iyo kala baayoy ma xilligaad maagi jidhay ayaa la gaadhay haddaan hadal yar dhaho adna aad san u hinaasayso daaxasayso yaan lagaa dafinin adiga xasarad la'aan yar ma fadhiyi kadhid miyaa walaalle dafidaad sheegahaysaa maxay tahay waa runteeda waxaad jeceshahay haddaad dafi weydo soo lagaa dafi maayo xafladdii moolka labadiinna unbasaa laydin daawanahay sidaa isugu qurux badnaydeen maasha allah waa la yaabo naheedha saafiya ayaana eegahayo qof waliba dantiisa unbuu ku mashquulsanaaya idinku ma idinkaa hedha wax arkayaya waa isku maqnaydeene jacaylka laydinkama caawiyo aamiin saafiya aamiin anbabaxaagisoo wax walba kuma dhammaystirnaa hedha hadal baa dhacay tayar intay hadlaysa ayay wax waliba dhaafahayaan hadday doonto waxbaa ka dhiman baayoy dhegayso aniga sidina jacayl waa niguma dhicina waa fayoobahay wax walibana way dhammaystiran yihiin baayoy ma annagaa waalwaalan naadhata wax kale waa ka soo dhagawen yihiin saa waa isjeceshiine qof jacayl hayaa waa miyir qabayaa ku yidhi waa runteed saafiye sow jacaylkan kuu qabaa gebigaygaba imuu madax marin hadhasa waxaan sheegahayay maaha intaan hadlahayay idinkuna isdaawanayseen ayaa cashadii qabowdeen hadhayga casheeya hudheelkan weliba cashadiisu aad bay u macaan tahay goormaad soo noqonaysaa saafiye hadha miskiinsanida intii yareeday nala joogtay bay sidii roobkayna qabsatay maxaad u soo dadejin haynaga maqnaato cunugtani kaftankayga laga maarmi maaye maxaad u maqnaysin horaa u soo noqotay adigana garabaabay ku noqotay intaad joogtay yaaqi ma idiin joogaa oo xafladdiinna ma soo dhowdahay mise wixiinnu waa anaa ku jecel iyo anaa kaa daranaya sheekiciyaan